si ay dowladda federaalka Soomaaliya ula socoto mashaariicda iyo kaalmooyinka kala duwan ee ay ka hesho beesha caalamka halka ay ku baxaan ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre waxa uu maanta shir muhiim ah isugu yeeray safiirada iyo wakiilada dalkeena u jooga caalamka ka oo diiradda lagu saaray dhaqangelinta qodobadii ka soo baxay shirkii London iyo in beesha caalamka ay u diyaar garowdo in lagula xisaabtamo waxyaabaha ay ka fulinayso Soomaaliya sida ay u hirgeliso shirka uu isugu yeeray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya xubnaha beesha caalamka ayaa waxa goobjoog ka ah wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka iyo mas'uuliyiin kale waxaana looga hadlay dardargelinta taageerada ay beesha caalamka ka hesho Soomaaliya isla markaana aysan xukuumaddu aqbali doonin in dawlad kasta ay dalka ka fuliso mashruuca ay rabto ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo la hadlay safiirada iyo wakiiladii ka socday beesha caalamka ayaa tilmaamay in dawladda Soomaaliya ay bilowday qorshe ballaaran oo lagula xisaabtamayo mashaariicda kala duwan ee dalka ka fuliyaan beesha caalamku inay ku salaysan yihiin baahida dadka Soomaaliyeed isla markaana ay meesha ka baxay dhaqankii hore ee caalamku Soomaaliya kula dhaqmi jiray wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sharaxaad ka bixiyay ahmiyadda kulankan uu lahaa dhaqaalaha ay bixiyaan baahida dawladda lagu saleeyo oo aysan noqonin hay'ad ama muxuu ahaa wadanka taageeraya inuu isaga mashruuc u rabo fuliyo in isbedeshay sheekadii Soomaaliya hore uga dhici jirtay haddana loo baahan yahay in dhaqankaas la bedelo wuxuuna ahaa shir runtii ra'iisul wasaaruhu ku doonayay in muxuu ahaa iyagana u muujiyo u mahadceliyo dadaalka ay shacabku u hayaan kana codsado in dadaalkaas uu noqdo mid shacabku wax tari karaan ra'iisul wasaaruhu wuxuu aad ugu cadeeyay uguna celceliyay beesha caalamku in waqtigii isla xisaabtanka ay dawladdu diyaar u tahay madaxweynaha oo isaga la xisaabtamayo isaga uu golayso wasiirada wasiir ula xisaabtamayo dhammaan wasiiraduna la xisaabtami doonaan dawladaha oo dhaqankii hore uu bedelay sidaas darteed wuxuu aad iyo aad ugu celceliyay ka codsaday in Soomaaliya diyaarta in la xisaabtamo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda ay rabaan in beesha caalamka la xisaabtamo oo shilin kasta ay bixinayaan dawladda iyo shacabka la ogeysiiyo sidoo kale wasiirka maaliyadda oo goobta joogay wuxuu cadeeyay bil walba inuu soo bandhigi doono shilin walba oo soo gala dawladda